dowladda Qatar ayaa Soomaaliya ka taageeraysa dhinaca difaaca sida ku xusan is-afgarad la filayo in labada dal ay wada siixdaan. kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay is-afgaradka dhinacyada kala duwan ay labada dal wasiixan doonaan sida iskaashiga difaaca, dhalinyarada ee ciyaaraha, waxbarashada iyo weliba maaliyadda. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk Soomaaliya oo gudoomiyey shirka ayaa sheegay in dowladdu ku howlan tahay sidii loo heli lahaa fursado iyo adeegyo caalami ah. dowladda Soomaaliya hore waxay heshiisyo dhinaca difaaca ula gashay dalal kala duwan oo caalamka ah sida Turkiga, Uganda iyo weliba kuwa kale. dalalkan ayaa inta badan waxa ay dowladda Soomaaliya ka taageeraan dhinaca amniga, gaar ahaan dagaalka Al-Shabaab iyo sidii ay taageero u siin lahaayeen ciidamada qalabka sida iyo kuwa weliba howlgalka EUSOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya.